بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu tahay 13 bishii tobnaad 2022 wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyada Jamhuuriyadda Somaliland waxay jawaab celin halkan ka sameynaysaa maanta hadallo warbaahinta haystay ayaamihii la soo dhaafay ugu horeyn san la wada socono dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxa ka jira shaqo la'aan baahsan taasoo keentay maalgashadayaal fara badan inaanay jirin isla markaana warshado fara badan inaan maanta ka abuurnayn taasoo dhalinyarta kumanaanka ah ee jaamacadaha sanad kasta inooga soo baxaya ay u sameyn lahayd shaqo abuur sidoo kale waxa markhaatimo doona in maanta qof kasta muwaadina oo maalgelinta sameeyay yiraahda oo warshad keenis yiraahda markuu warshada maanta keeno warshada dhulkii uu dhigi lahaa uu dhulku ka qaalisan yahay lacagtii uu soo siistay warshada oo waxaan dhamaanteen isla wada garanayno waxa oo xaqiiqa qofka maalgelinta sameynaya maanta lacagta warshada soo siinayo iyo lacagta dhulka soo siinayo waxa qaalisan maanta dhulka isla markaana waa sababta maanta ay ugu dhiiran laayihiin dad badan oo maalgelin sameyn lahaa inay warshada keenaan dalka sida awgeed dowladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay go'aansatay in qof kasta oo maalgelin sameynaya isla markaana keenaya dalka warshad ama maalgelin kale ku sameynaya inuu helo dhul bilaasha oo dhulka uu ka sameeyo maalgelin sidoo kale uu ka abuuro warshad nooca doonta ahaata wasaaradda howlaha guud dhulkii gurinta Jamhuuriyadda Somaliland oo qaranka uga mas'uula dhammaan dhulka dowladda waxay waday daraasad fara badan oo muddo badan soo socotay taas oo dhulkii dowladdu lahayd meel uu yahayba maanta dhammaan gobolka ku kala daadsanaa dhammaan dhul kasta oo dowladdu leedahay wasaaradda howlaha guud gacanta dowladda ay dib ugu soo celinaysaa dhulkan maanta muruq ka jiro kaliya maaha dhul kasta oo dowladdu lahayd gacanta dowladda ay dib ugu soo noqonaya sida uu dhigayo qodobka 12aad ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhulka dhamaantii dowladda ayaa iska leh dowladda ayaana uga mas'uula shacabka sidoo kale sida uu dhigayo xeerka maamulka magaalooyinka xildhibaan 17 haddii dowladdu dhul u baahato ay meel uga baahato dowladdu waxay kala noqon kartaa dowladdu xaq waxa u leedahay inay la noqoto haddii ay dhul u baahato dhulkaasoo haddii xataa laga yaabo inuu sharci leeyahayba wasaaradda howlaha guud dhulkii gurinta Jamhuuriyadda Somaliland waxay si cad u bayaaminaysaa inaanay jirin meel alla iyo meel lagaga noqday dhulkii aaga warshadaha gobolka Marojeex ee maalintii dhaweytoole la dhagax dhigay dhulkaas oo loo yaqaano biyo xirka meel alla iyo meel ay dowladdu kaga noqotay dhulkaas ma jirto dhulkaasina sidiisii buu ahaanayaa aagii warshadaha ee gobolka Marojeex ee lagu talagalay ayaanu ahaanayaa wararka la isla dhex marayo ee leeyahay waxba laga noqday wax alla iyo wax ka jira ma jiraan dhulka biyo xirku waa dhul hantima guurta oo dowladda Jamhuuriyadda Somaliland u diiwaan gashan dhulkaas waxa la sameeyay 1974 waxa sameeyay bila rafle isagoo beriga ugu talagalay inuu noqdo goob biyo xireen muddo kadib dhinaca waqooyi waxa laga dhigay goob loo dalxiis tago oo goob dalxiis ba laga sameeyay oo beriga loo dalxiis tagi jiray oo dhulkani waa goobta ku baxday heestii caanka ahayd doonidii jacaylka aan raacnay muddo kadib si ku meel gaara dowladda xilligaas waxay dhinaca koonfureed ee dhulka dejisay dad qaxootiya oo dhulka si ku meel gaara loo sii dejiyay ma jirto haba yaraatee dowladda dhexe cid gaara ay dhulka u hibaysay ama ay siisay haba yaraatee ma jirto sidoo kale dhulkaas wuxuu la mid yahay dhulka area shacab ee dowladda dhexe leedahay wasaaradda howlaha guudna qaranka uga mas'uulka tahay dhulkaas oo dhul dowladeed cid kastana way taqaanaa kii yeelayana waxaan la tiigsanaynaa sharciga dhulkaas oo dhul dowladeed oo ummadda ka dhaxeeya ninkii u soo boob tagayo risiq dhaama weydiiso ilaahay baan leenahay dhulkan ummadda ayaa iska leh ummadda ayaa manaafacasanaysa dowladda ayaana ka mas'uula cid kasta oo manfac ummaddan u wada ama warshad ha noqoto ama maalgelin ha noqotana bilaash baana lagu siinayaa wasaaradda howlaha guud iyo dadweynaha kala duwan cid alle iyo cid isku dhufan kartaana ma jirto cid alle iyo cid u dhaxayn kartaana ma jirto cid kasta oo dhulka dood ka qabta
ha yaraato ama ha badnaato oo si unugu doodaysa wasaaradda howlaha guud iyo hay'adaha kale u xil saaran albaabadoodu u furan yihiin. dhinaca kale ayaamahan waxaad maqlayseen hadallo deelqaafa oo kasoo yeedhayay mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. qofna aragtidii cidna kuma shaqayso, waxa lagu shaqeeyaa waa sharci, waxa hay'adaha kala xadeeya waa sharci. qofna intuu aragtidiis ka soo qaato tuurta ku soo qaato suu doonayo ma yeelayo. sida uu sheegayo xeel number 23 qodobkii 23aad farqadiisa labaad, mudanayaasha golayaasha deegaanka xilkoodu waa tabaruc, mana yeelanayaan howlmaalmeed joogtaa marka laga reebo guddida fulinta oo ka kooban maayarka, maayar ku-xigeenka iyo xogeyaha dowladda hoose. sidaa markay tahay, wasaaradda howlaha guud iyo mudanayaasha golayaasha deegaanka meel alla iyo meel aan iska soo gaarna annagu ma jirto, wax shaqo naga dhexeeyaana ma jiraan. annagu waxaan wada shaqayn toosa la leenahay guddida fulinta ee caasimadda Hargeysa ugu horeeya Maayar Cabdikariin. dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud waxaan bulshada u sheegaynaa maanta waxa naga dhexeeya wada shaqaynta ugu fiicneyd abil soo marta wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. bil kasta waxay labada hay'adood yeeshaan shir joogtaa. daraad baa u dambeysay wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxay iska kaashanayaan oo toddobaadan soo socda bilaabanaya si loo dhameystiri lahaa xayndaabka wadada ku wareegaysa magaalada ee 200 ee ka bilaabanaysa dhinaca galbeedka ilaa koonfurta xaggana kaga soo xirmaysa wadada corridorka, iyadoo si ugu dhaqsaha baan toddobaadan ay bilaabanayso. sidoo kale wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose waxay qorshahooga wadaan oo in toddobaadan bilaabmaya master balaankii magaalada Hargeysa. wasaaradda howlaha guud waxay u mahad celinaysaa guddida fulinta ee caasimadda Hargeysa wada shaqaynta fiican ee dhow ee wanaagsan ee quruxda badan ee joogtada. saa la socotaan guddiga shaqaynta qaranku waxay xeyrtay in la qorsheeyo beeraha magaalada Hargeysa maadaama wasaaradda howlaha guud ay u sameynayso magaalada Hargeysa master plan. mudanayaashii ayaamahan warbaahinta ku faraha badnaa ee hadalada deelqaafka wasaaradda howlaha guud ee soo gaadhsiinayay, waxaanu haynaa beerihii guddigii nashqadeyntu ay xaniibtay inay dacfaruur ku wadeen, kuwaasoo aanu ka qabanay kana joojinay. sidoo kale mudanayaasha qaar kuwii hadlay waxaa ku jira qaar faylalkoogu maanta yaalaan CID-da. war haddaad cid eedeynaysaan maanta idinkaas kugu filan, faylashiinu maanta meel kasta idinka daasay. mahmaa Soomaaliyeed baa ahayd hashi qowracna ma hadlaya. ragga maanta ceebta intaa leeg dul hoganayso ee ceebta intaa leeg maanta aanu ku hayno ee faylasheedu kala duwan sidaa yihiin ee meel alle iyo meel wada shaqayn wasaaradda howlaha guud ee ka dhaxaysa aanay jirin ayaa raba in wasaaradda howlaha guud bulshada iska horkeenaan. taana waxaan leenahay bulshada annaga u adeegna, annaga u joogna, laiskamana kaaga horkeeni karo. bahda saxaafaddana waxaan kula talin lahaa war sharcigu suu dhigayo mudanayaal golo deegaan baa jira, maaha xildhibaan. magaca xildhibaan looguma yeedho mudanayaasha golayaasha deegaanka. xildhibaan waxaa iskale golaha wakiilada iyo golaha guurtida. magacana xildhibaan horta aynu ka dayn ragga innagaa boonbooninaye, magacana xildhibaan aynu ka dayn raggan aynu ugu yeedhayno xildhibaano golo deegaan. meel alla iyo meel sharci magaca xildhibaan ku siinayaana ma jirto. wasaaradda howlaha guud waxay usoo jeedinaysaa golayaasha deegaanka ka tirsan mudanayaashaasi inaan shaxmarin lagu sameeyo. hadday halkaas arrin ka sii socdeen wasaaradda howlaha guud uma adkeysan doonto. mudane kasta oo aan wasaaradda waxaa ka qaban warbaahinta la yimaada, bulshadana marin habaabiya wasaaradda howlaha guud, mudanahaas waxay la tiigsanaysaa maanta wixii ka bilowda laamaha sharciga ee arrintaasi khusayso. mudano dambe oo aan u dul qaadanaynaa ma jirto.